Bismillahirrahmanirrahim. Wad salaam ya dhamaantiin meel kasta joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan cashirkeeni lixaad hadduu Rabbi ogolaado. Ka hor intaynaan bilaabin waxaan ku ogeysin lahaa inaad subscribe saarto si aad ula socoto casharada dambe adigoo oo aan wax linki ah u baahan. Waxaynu qaadan doonaa oo maalmihii hore aynu ku soo jirnay wax la yiraahdo pharmacokinetic ama waxa uu dawadu jirka ku sameeyo. Maanta waxaanu qaadanaa waxay dawadu jirka ku sameyso. Learn objectives ka jira aynu ku dhex qaadan doonaa inta course-keenu socdo. Wax kamid ah in dynamics ka definition u sameyno. Then definition of drug and isagana u sameyno. Different types ka uu leeyahay receptors iyo sida u falgalaan inaynu isagana aynu qaada dhigno. Kasab inaynu ka bixino waxa la affinity factories ka saameeya inay qabsadaan receptors ka drugs receptors ka qabsadaan conceptive intrinsic activities ka isagana ka bixin doona differences ka u dhaxeeya full iyo partial agonistic ayaynu isagana qaada dhigi doona insha Allah taala definition ka potency efficacy ka ayaynu isagana sameyn doona definition isaguna isagiyo LD50 iyo ED50 bayna labadaba u sameyn doona oo cashirkeena ay ku qaadan doona horinta inaan wax kale gelin baa inaynu kelmadda faraxayno inaynu sharaxno ka dynamics way theory of effective drugs biological system ku leeyahay marka waa saameynta dawada jirka ku leedahay ama sida uu jirku u shaqeynayo ay ku leedahay waxa jira drug properties wax la yiraahdo drug properties ku hadii drug properties isla qaadano marka dambana waxay isla ogaanaa receptors marka chapter-ka gabigiisu wuxuu ku saabsan yahay waa drug properties iyo receptors ku saabsan yahay hadii receptors iyo drug properties ku saabsan yahay waa inta falgala ee u dhaxaysa intaas uu inta badan sharxaya drugsku waxay qabsadaan receptor kaasoo mediate kareeya waa leeyahay ama dhexdhexaadiyaan chemical structures ka dhexdhexaadinaya waxay u ogolaadeen inay interact la sameeyaan ama ay qabsadaan surface of receptor hadii receptor la qabsadana meesha wax ka dhacaya wax la yiraahdo physiological response tusaale yar oo kooban aynu soo qaadan ugu horeyn waxa drug la falgalaysa ama dawadu receptor deena selkii oo ku dul yaala deena signal buu bixinaya signalkaas wuxuu noqon doonaa mid wax ka bedela selka dhexdiisa tusaale hadii la soo qaato oo yiraahdo DNA da jooji waxa halka ka dhacaysa inuu DNA di replication ka joojiso deena isbedelkii ka dhacay halkaasi uu dhamaan tiis bedelo waxa jira waxa la yiraahdo agonist activity cellular signal marka agonisku waxa weeyaan initiation response in la bilaabo oo tusaalahan hadii receptor-kii in lagu bilaabo sidoo signal u bixiyo ama signal u bixiyo cellular signaliska ayaa marka waxay sameynayaan pathway-gaas signaliska isbedelaya la activate garaynayo inuu physiological activities ka bedelo ama sidoo jirku u shaqeynayo waxa la yiraahdo wax ka soo jeeda waxa la yiraahdo antagonist binding to receptor intaas drugs ku way leedahay marka waxna way joojin kartaa waxna way bilaabi kartaa ama response ay joojin kartaa waxna way bilaabi kartaa marka response marka ay bilaabayso agonist activity warana marka xiraysana maxay antagonist binding baa noqonaa antagonistka initiation ma samayso in cellular functions ka isbedelo laakiin shaqada ay qabataa waxa weeyaan inay gargarayso action-ka ay qabanaysa maxay agonist ku qabanayeen marka tan bay ku cagsita tani waa tan cadawgeed tanna waxay bilowdaa response inay samayso marka waxa jecelahay in antagonist iyo agonist inay kala baxnay tan waxbay bilowdaa tanna waxbay xidhaa waxay xidhaana agonist bay xidhaa waxyaabaha bilaabayso tan marka sabistano something uu kala joojinayo labada meelood receptor waa maxay waa unicellular macromolecules weeyaan kaasoo noqon kara neurotransmitter ama drug binding initiation effective waxa noqon kartaa neurotransmitter waa substance taasoo inay macromolecules waxay saameyn ku yeelanaysaa physiological regulation hadday neurotransmission noqoto
iyo hadday noqoto endogenous response waxa lagu leeyahay endogenous functionska ama endogenouska functionska wax ka qayb qaata receptors kuwaasoo ah ama neurotransmitter ama physiological regulation inay sameeyaan labada unba inta badan endogenous functions ka qayb qaata in physiological regulation dhacdo ama in neurotransmissions ay meesha yimaadaan waxa jira types u leeyahay hadaba receptorsku types waa four inkastoo meelaha qaar ay buugta qaar ka duwan yihiin laakiin waxa jira qaybaha ugu caansan waa inta waa qaar regulator sameeya ama regulatory sameeya haddii change lagu sameeyo activitieska cellular enzymeska waxaan oranay regulatory bayna oranaa ama inta badan waxa sameeya enzymes baa regulate karaya enzymesku waxbay xiraan iyagu ama waxbay bilaabaan waxa jira receptors enzymes mar labaadna waxa jira transporters qaar sodium iyo potassium iyo ATPs waxa transportation ka shaqeeya ama markasta transported gareeya structure-ku waa wixii internal ku jira cell parts-ka kamid ama qayb kamid cell parts-ka waxaan isleeyahay qeexi doonaa waxay tahay drug receptor binding ama drug receptor binding infinitiesku wax kala maaha waxa weeyaan waa properties ay leedahay draagu kaasoo receptor lagu ay ku qabsanayso marka waxa la yiraahdaa marka la sii qeexayna waa attractive drug receptor draaga iyo receptorka ayaa labadaasi attractive ka isku haystaan iyo soo jiidashada ayaynu oranaynaa tusaale ahaan mar labaadna waxa isku haya labada covalent bonus waa two double bond marka waa stable jibin karo aad buu adag yahay bondkan waxa la yiraahdaa electrostatic bond baa isaguna jira oo mararka qaar kood isku haya receptorka draaga marka wuxuu noqon karaa mid strong ama weak laakiin badanaa waa la soo celin karaa marka electrostatic waa wixii ku saabsan positive charge iyo negative charge hadii chemistry uu noqono waa marka la doonayo in positive ionsku marka uu lumiyo atom deena electron lumiyo deena la doonayo in positive laga dhigo yani atomka aynu soo qaadano intan d ayaa halkan ka muuqda haddii ay isku hayaan sanic covalent bond waxaynu oranaa TR complex marka wixii oo DR complex marka waxaan oranaa evenitskeega uu fiican yahay ama ma fiicna inta inagoo haysana ayaynu waxaan u gudbaynaa maxay qaybta kale xigta oo inta anagoo isla garanayna waa hore evenitygu aynagoo haysana ayaa waxaynu soo qaadanay tusaalahaan evenitygi baa kanu soo qaadana TR complex marka efficiency-gu ama intrinsic activitiesku wax weeyaan waa marka uu labadaas isqabsadaan deena receptorka uu soo saaro effect ama saameyn soo saaro taas baynu oranaynaa marka inagoo infinity-ska isna wixii is haysta ay response soo saareen tusaale haddii laba kaas tusaale receptorka iyo drug isqabsado complex ay noqdaan deena wax soo saarayaan jawaabta ay soo saarayaan intrinsic activities bay noqonaa marka some drugs dawooyinka qaar baa leh affinity qaarna waxaan lahayn efficacy marka intaas hadeen isla fahanay factors baa jira given drug action oo waxyaabaha inta badan maamula marka wayniga hore soo qaadanay factorska dhammaan maamula ama waxay noqon kartaa pharmacokinetic bay noqon kartaa oo laba qaybood weeyaan qaybta hore in ama inay noqoto pharmacodynamic marka pharmacokinetic laga soo gudbo pharmacodynamic weeyaan marka pharmacokinetic marka horeba horeeya hadii drug administration ka ama qofkii lagu mudo dawo absorption baa la sameeyaa marka dambe distribution baa la sameeyaa in dawadii lagu fidiyo jirkii ama circulation kii la geliyo receptor sites kii baa la keenayaa marka dambana drug receptor kii baa ayaa isla buu socdaa drug receptor kii baa micro environment yareynaya oo drugs kii baa ayaa la sameeyaa in lagu xiro drugs ku waxay qabsanayaan receptor bay qabsanayaan wuxuu receptorkii activation gareynaya inuu cell signalkii dhaco deena physiological response ma dhacaya dawadii saasay ku jawaabaysaa intaas governance-kaasi
ama pathway-gaasay raacdaa inta badan isagoo shortcut ah weeyaan. mar labaad buu inoo soo qaaday labadii kelmadood ee marka hore aan soo sharaxnay D iyo R aan kusoo sharaxnay. marka D iyo R inta hore waxaan ku xusuusan D ama drug iyo receptorka inay homologous noqonayaan, deedna marka dambana effect markay saameeyaan aynu odhanno TR homologous effective. marka interaction activitiesku waa inta la cabirayo agonist activationka ay sameynayso ama ay ku bilaabayso dawadu ayay bromiska receptorka ay ku bilaabayso ama activation ha samayso activation stimulation ha samayso ama cellular activitieska ha bedesho. kan horena waa inagii waa inta isku haystay dawadu.